habeen wanaagsan. Bismillaahi Rahmaani Rahiim. Marka horeysa waxaan rabaa inaan isaga tacsiyeyno warka naxdinta leh oo hadda laynoo sheegay oo ah in qarax ka dhacay kuwii dhibta badnaa ay ka sameeyeen Kismaayo in dad Soomaali ah oo aan waxba garabsan dhibaato ka soo gaartay oo sida inoo sheegaysay walaasheen ay ka mid tahay gabar jaaliyadaha dibadda aadka looga yaqaano. Marka gabadhaas iyo dadkii kaloo dhintay markaan soo soconay waxaanu ka akhriyeynay social media in ninkeediina la dhintay. Marka Allah u naxariisto iyada iyo ninkeeda iyo kaloo Soomaaliya oo ama wax ku dhintay intii wax kusoo gaartay in Ilaahay caafimaad siiyo iyagana Ilaahay dadka ka qabto dadka dhinto. Marka inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Tacsi ayaan dareynaa ehelkii dadkaas ka dhintay iyo ummadda Soomaaliyeed oo ugu horeysay intii halkan joogto.